dadkeennii iyo dhallinyaradeenii ku haysa la yaabna male sababtoo duruufaha dalkii yaalla shaqa darrada taalla intii badneed xataa markii jaamacado yaryar oo la sameeyay ay ka soo wada baxaan oo ay dee iyagiis leeyihiin jaamacadaad ka soo baxdeen ama waxbaad barateen ama waabad yar dadaasheen haddana ay meelna dee mashquuc geli waayo ama wax jaanis arki waayaan way iska niyad jabayaan runtii waxaba ugu dambeysay taa doonida iminka Masar ku qarqantay weygii hore ahayd ilaahay ha u naxariisto oo dhalinyarada halka ku haligantay iyo kuwii ka horeeyayba dadkoodii samiriyo iimaan laakiin waa duruuf runtii aad iyo aad looga murugoodo niyad jabka iyo dhibaatada dhalinyarada inay ku furan laakiin anigu waxaan kaliya oran lahaa kow adduunka wax lagu khamaara way iska badan yihiin qof baa lacag haysto oo lacagtiisa ku khamaara oo intuu kaco haddana dee beri dambe haddana meel uu isaga gashaayo dee lacagtiisa isaga soo noqotaa mid baa waqtigiisa ku khamaaro beri dambe intuu tooso tacliintii iyo wax soo jeesto haddana noloshiisa dib ka dhisa laakiin dee wax lagu khamaaro dee naftaada ugu liidata sababtoo iyadu dee waa mar kaliya naftu mar uun baa lagu siiyay mar uun bayna baxaysa markaa nafi wax lagu khamaaro ka weyn irsaaqadana ilaahay baa haya dal wanaagsan baynu leenahay khayraad oo dhan baa ku jira dhalinyaradu hadday dhulkooda iska aaminaan oo isaga soo jeestaan de waxa laga yaabaa ilaahayba inuu halkaa ka siiyo sida maanta la moodayana adduunku maanta maaha berrina maaha waa waqti dheer weeye sidaad maanta u aragtid berri buu ka gedisnaan karaa haddaan tusaale soo qaato dalkeena markuu burburku ka dhacay anigu waqti aan ilaa 7 sano ka hor wadanka ka dhoofay bay ahayd jaamacad aaday soo dhamaystay waxaan garanayaa markii sheekooyinkii bariga dhalinyarada iyadii Mareykan joogay naga dhaxeeyay de waxa waqti aanu jaamacadaha iyagii dhamaysanay waqti aanu qofba meel ku jiray oo mid isla wallahi jaamacadii dhamaysay masterkiina ku dar mid la war jaamacadii haddaan dhameeyay waa noqonayaa anagu wadankii aanu isagoo wanaagsan aanu ka nimi barwaaqada ahaa waxaan islahayn nin walba markuu dhowr iyo 20 jir buu nin walba ahaa dhowr iyo 20 jir waxaan islahayn idinkoo dee wax bartay baa wadankiinii oo fiican ku noqonaysaan dee waxa weeye lugaha rayska gelinaysaan barwaaqada saa u kala dhuraysaan annagii baa lagu soo qoxona laga hor yimi wixii masiibo la ogaaba ka dhacay marka rajadii aanu sida u